Mustafa Kamal Atatürk wuxuu ahaa hogaamiye military, halyey dagaal, siyaasi casri ah iyo aasaasihii Jamhuuriyadda Turkiga. Waxa uu hogaaminayay kacdoonkii Turkiga ee looga adkaaday faragelintii Yurub kadib dagaalkii Koowaad ee Adduunka, wuxuuna burburiyay khilaafadii Cusmaaniyiinta isagoo dhisay dowlad qaran oo ku saleysan qarannimo Turki ah, sidoo kale secularism iyo casriyeyn buuxda. Taariikhdiisa waa mid muran badan leh, qaar waxay u arkaan badbaadiye iyo halyey, halka qaar kalena ay u arkaan inuu burburiyay islaamkii iyo dhaqankii qadiimiga ahaa. Haddaba waxaan si qoto dheer ugu eegi doonaa noloshiisa, fikirkiisa, kacdoonkii iyo dhaxalkii uu reebay. Intiina u gudbin dhammaan, haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir oo subscribe dheh. Dhalashadiisa iyo noloshiisii hore. Mustafa Kamal wuxuu ku dhashay magaalada Salonika ee hadda loo yaqaano Giriiga sanadkii 1981. Aabihiisu wuxuu ahaa ganacsade yar, hooyadiisana waxay ahayd haweeney diin badan. Wuxuu wax ku bartay dugsiyada militariga iyo kuwa cilmi-nafsiga leh. Waxaa lagu yaqaanay maskax furan, akhris badan iyo go'aan adag. Intii uu dhalinyarada ahaa wuxuu aad uga soo horjeeday burburkii iyo la dagaalankii khilaafadii Cusmaaniyiinta ee la kulmaysay, wuxuuna bilaabay inuu ka fikiro sidii Turkiga u noqon lahaa qaran madax bannaan. Dagaalkii loo yaqaanay Gallipoli ee sanadkii 1915 ilaa 1916 wuxuu ahaa dhacdo taariikhi oo si qoto dheer u muujisay kartida iyo hogaaminta military ee Mustafa Kamal Atatürk. Dagaalkani wuxuu ka dhacay gacanka Dardanelles, waana mid ka mid ah dagaaladii ugu dhiigga badnaa ee ka dhacay dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Ujeedada dagaalku wuxuu ahaa quwadihii xulafada ee Ingiriiska, Faransiiska iyo Australia waxay ahayd inay jebiyaan difaacyadii Cusmaaniyiinta si ay u gaaraan Istanbul una furaan marinbadeed muhiim ah oo u dhexeeya Ruushka iyo Yurub. Mustafa Kamal wuxuu hogaaminayay cutubyo ka tirsan ciidanka Cusmaaniyiinta, wuxuu si geesinimo leh u abaabulay difaacyo adag oo fashiliyay weeraradii xoogganaa ee xulafada. Mid ka mid ah hadalladii ugu caansanaa ee uu yiri intii uu dagaalku socday ayaa ahaa: "Ma anaa idin amrin inaad weerartaan, waxaan idin faray inaad dhimataan." Weedhaasi waxay sumcad weyn ku siisay shacabka Turkiga, waxayna u muuqatay inuu yahay halyey dhabta ah. Dagaalkii Koowaad ee Adduunka wuxuu ahaa qodob muhiim ah oo xoojiyay fikirka Kamal. Intii lagu jiray dagaalka, wuxuu ka qayb qaatay dagaallo badan, wuxuuna caan ku noqday guushii Gallipoli ee uu kaga adkaaday Ingiriiska iyo xulafadiisa. Kadib burburkii Cusmaaniyiinta, qodobkii Sevres wuxuu damcay in dhulka Turkiga la qaybiyo. Mustafa Kamal wuxuu bilaabay kacdoon qarannimo, isagoo abaabulay dagaalkii madax-bannaanida ee Turkiga sanadkii ahaa 1919 ilaa 1923. Wuxuu bilaabay halganka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo xukunkii Cusmaaniyiinta ee aan waxba ka qaban karin. Aasaaskii Jamhuuriyadda Turkiga sanadkii 1923, markii uu guuleystay kacdoonkii Turkiga, waxaa si rasmi ah loo dhisay Jamhuuriyadda Turkiga, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay. Atatürk wuxuu si toos ah u burburiyay khilaafadii Islaamka sanadkii 1924, wuxuuna la yimid dowlad sekular ah oo diinta iyo dowladda kala saarta. Isbedeladiisa waxaa ka mid ahaa xiritaanka madrasooyinka diinta, ka saarista shareecada Islaamka oo lagu beddelay xeerarka Yurub, isbeddelka luqadda oo lagu beddelay xarfiga Carabiga loona beddelay Laatiin, xiritaanka xijaabka oo goobaha dowliga ah, xoreynta dumarka oo la siiyay codbixin, waxbarasho iyo shaqo. Casriyeyntii dhaqaalaha iyo bulshada. Mustafa Kamal wuxuu bilaabay dib u habeyn dhaqaale, wuxuuna sameeyay warshado dowladeed, kor u qaadista waxbarashada iyo dhismaha kaabayaasha dalka sida tareenada iyo warshadaha. Wuxuu aaminsanaa in Turkiga uu noqon karo dal casri ah haddii laga guuro dhaqanka qadiimiga ah oo laga dhigo dal bulsho oo aqoon-yahano. Wuxuu la dagaalay qabiilada, turuqda iyo beelaha awoodda ku leh bulshada, isagoo doonaya in muwaadin walba uu ka sareeyo qabiilkiisa. Inkastoo uu dhisay dowlad adag, haddana Atatürk wuxuu wajahay cambaareyn ka timid dunida Muslimka. Burburintii khilaafadii Cusmaaniyiinta waxay la yaab ku noqotay muslimiinta oo dhan. Waxa uu diiday in Turkiga noqdo hogaamiye islaami ah, isagoo doorbiday qaran keliya u taagan danihiisa gaarka. Wuxuu xiriir wanaagsan la sameeyay dalalka Yurub iyo Midowgii Sofiyeetka, isagoo Turkiga ka saaray isdhexgalkii islaamiga ahaa ee caalamiga. Atatürk waa hogaamiye muran badan abuuray. Kuwa taageero waxay ku tilmaameen badbaadiye Turkiga ka saaray burburkii Cusmaaniyiinta. Kuwo kale waxay u arkaan inuu ahaa ninkii gooyay Turkiga xidhiidhka Islaamka, diinta iyo dhaqanka. Sidoo kale wuxuu joojiyay talo wadaagga, wuxuuna talada ku koobay kooxo yar. Dad badan waxay u arkaan inuu ahaa keligii taliye, inkasta oo hormuud u ahaa isbeddello muhiim ah.
geeridiisa iyo dhaxalkii uu reebay. Mustafa Kemal Atatürk wuxuu geeriyooday sanadkii 1938 isagoo 57 jir ah. Waxaa aas qaran lagu sameeyey magaalada Ankara, waxaana laga dhisay qabriga weyn ee Anıt Kabir. Dhaxalkiisa wuxuu weli saameyn weyn ku leeyahay Turkiga. Xeerkiisii secularism-ka ayaa weli la ilaaliyaa. Waxbarashadiisa casriyeynta iyo dowladnimada adag ayaa ah tiirka Turkiga. Magaciisa iyo sawirkiisa waa kuwo sharaf iyo ixtiraam ku leh gudaha Turkiga. Turkiga casriga ah wuxuu si weyn u taagan yahay dhaxalkii Atatürk. Inkastoo madax cusub sida Erdogan ay qaadeen siyaasad diimeed iyo mid dunida muslimka la jaanqaadaysa, haddana mabdii Atatürk ee secularism-ka ayaa weli qayb ka ah dastuurka Turkiga. Haddaba waa maxay nidaamka secularism-ka? Atatürk wuxuu si buuxda ugu dhaqaaqay secularism, dowlad ka madax bannaan diinta. Waxaa la xakameeyey culimmadii siyaasadda ku lug lahaa, waxaana la sameeyey nidaam dimuqraadi ah. Waxay dumarka heleen kadib nidaamkii secularism-ka xuquuqda inay codeeyaan, waxbarasho lacag la'aan ah, iyo inay shaqooyin dowladda ka qabtaan. Dhalinyarada qaar waxay su'aal geliyeen isbedeladiisa, halka kuwo kalena ay u arkaan nin aan la ilaawi karin. Su'aasha weyn ayaa ah, ma ahayd in Turkiga laga saaro khilaafadii Islaamka si uu u gaaro horumar? Ugu dambeyntii, Mustafa Kemal Atatürk wuxuu ahaa nin geesinimo leh, hal abuur, hogaamiye militari iyo siyaasad. Waxa uu Turkiga ka saaray burburkii qarnigii 19-aad una horseeday qaran cusub oo casri ah. Laakiin guulihiisa waxaa la socday khasaare: burburinta khilaafada Islaamka, xakameynta diinta iyo dhaqaalaha adag ee dowladda dhexe. Waxa uu tusaale u yahay sida hogaamiye qaran uu u beddeli karo hal dal masiir cusub. Intaa ayay ku eg tahay taariikhdii Mustafa Kemal. Haddii aad ku cusub tahay mar kale channelka nagu soo biir oo subscribe dheh.